jahannama ma ahe meel kaloo lagu hanuuninayaa ma jiro. haddaba jahannama waa meel dhib badan walaalayaal, waa meel aad iyo aad u adag, waa meel shaydaanka iyo inta raacday loogu wacdiyey oo loogu ballamay. haddaba dadka ahlu naarka ah waxaa ka mida tilmaamahooda inay yihiin dad shaydaanka hoggaansaday, dad shaydaanka watay oo dhinac ula baxay. ilaah ayaa yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama, yidhi ilaahay wakhti nebi aadam aanu ku niri malaa'igta war u sujuuda aadam, fasajaduu ilaa ibliis, way wada sujuudeen ilaa ibliis maahane. qaala a asjudu liman khalaqta tiinaa, wuxuu yidhi ma waxaan u sujuudayaa midaad dhooba ka abuurtay? ilaahayow seen ugu sujuudayaa waxaad dhooba ka abuurtay? ma xishoonaysid miyaa ilaahayow? maxaad ii leedahay anaaba ka khayr badane u sujuud aadam. a asjudu liman khalaqta tiinaa. ilaahay waa lacnaday, markaasuu shaydaanku yidhi ara'aytaka haada aladii karramta calaya, iga waran midkaan aad dushayda ka karaamaysay. lain akhartanii ilaa yawmi alqiyaama, rabbow haddaad ii kaadiso, haddaad nolosha ii dhaafto, haddaad ii dibdhigto ilaa maalinta qiyaamo, la axtanikanna, waxaan baadiyayn doonaa oon dhumin doonaa oon dacay gashan doonaa carruurtiisa ilaa qaliilaa. in yar oo iga fakata maahane, wax yar oo iga badbaada maahane, dhammaan waa dhumin doonaa. sidaa ayuu shaydaanku ku wacdiyey, sidaa ayuu ku ballanqaaday, sidaa ayuu ilaahay hortiisa wacad uga qaaday. lain akhartanii ilaa yawmi alqiyaama la axtanikanna durriyatahu ilaa qaliila. ilaahay muxuu yidhi bax buu yidhi, adiga iyo wixii ku raacaba, adiga iyo wax allaala wixii aad duufsato, adiga iyo wax allaala wixii amarkaaga yeela. war shaydaanow adiga iyo wixii ani amarkayga diida oo adi iga kaa doorta ayuu ilaah yidhi la'amla'anna jahannama ayaan idinka buuxinaa. ama wa inna jahannama lamawciduhum ajmaciin, jahannama ayaa mawcid idiin ah dhammaantiin. lahaa sabcatu abwaab, waxay leedahay 7 albaabood naarta jahannamo. likulli baabin minhum juz'un maqsuum, albaab kastaa gobol oogu talagalay ayaan siinaynaa ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. war cadaabkii jahannama waa kaa. jahannama waxaa loo ballanqaaday shaydaan iyo wixii raaca. shaydaanka maanta aan iska ilaalino, war waa cadowgeennee cadow aan ka dhigano. war wanaaggeenna ma rabee aan wanaaggiisa ka shaqaynin. war xumaanteenna ayuu rabaa ee xumaantiisa aan ka shaqayno. war wixii caragelinaaya sameeya oo ilaah ka raalli noqonaya, wixii alla caragelinaaya oo shaydaanku raalligelinaaya ha samaynina. sidaa ayaa wanaag iyo sharaf loogu gaaraa. waad u jeedaa ilaah subxaana wa tacaala inuu leeyahay adiga iyo wixii ku raaca. wa inna jahannama lamawciduhum ajmaciin, dhammaanba jahannama ayaa mawcid iyo ballan idii ah. 7 albaab ayay leedahay, albaab kastaana gobol loogu talagalay ayay leedahay. gobol loogu talagalay ayuu ilaah siinaya subxaana wa tacaala. war qof walbow jasadkaaga cadaabka jahannama ka ilaali. war qof walbow cadaabkaaga ma u adkaysan kara layskaaga. war jasadkaagu waa jasad khafiif ah, waa midaan cadaabka u adkaysan karin, waa midaan cadaabka xamili karin, waa mid cadaabka aad iyo aad ugu nugul. waxaa looga badbaadiyaa shaydaankaoo layska ilaaliyo, daacada alla oo la fuliyo, jahannamo oo ilaah laga magan galo. war mar allaala markaad rabbigiin hor istaagtaan oo aad rabtaan hor istaagga ilaah inaad ka dhaqaaqdaan, waa atixiyaadka ugu dambeeye. 4 waxyaabood ilaahay ka magan gala ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. ilaahay nebigiisa kaafil kama noqon, mana iloobin cadaabka jahannamo inay dadka ilaahay ka magan galaan inuu ku guubaabiyo. waxaad dhahdaan allaahumma innii acuudu bika min cadaabi jahannama
ومن عذاب القبر fidnada adduunka iyo maxayee nolosha iyo masiixu dajaal fidnadiisa afartoodaba ilaahay ka magan gala ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. war in ilaahay laga magan gala ma ahe si kale loogama fakan karo. war in daacada alle lagu dadaala maahe si kalema looga fakan karo. war in ilaahay la qabsado oo la ictimaado oo la tabakalood wuxuu kuu diray aad samaysa maahe si kale oo looga fakan karaa ma jirto. waa meel aad iyo aad u dhib iyo cajaa'ib badan. rasuulku wuxuu yidhi ninka cadaabka ugu khafiif badan waa nin labadiisa raasmadaartada ama cagihiisa laba bulkeeti oo naara loo saaro. waa lagu afuufayaa ama waa lagu babinaa. maskaxdiisaa la karaysa ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. waa oynayaa ilaa uu yidhaahdo wax iga cadaab adag naarta maba ku jiraba. asagaa ugu yar ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. warkii ugu jahannamo yaraa hadduu yidhi anaa ugu sarreeya ka warrama ninka ugu koreeya say xaaladiisu noqon doontaa. say arrintiisu noqonaysaa. say xaaladiisu noqonaysaa ninka ugu cadaab adag uguna cadaab adag uguna kakan kii ugu hooseeyey laba lobulkeeti keliya lagu fadhiisiiyey lagu babiyaa maskaxdiisa la karkartay cadaabka qayladiisa looga jiri la'yahay. war dhibaato iyo rafaad ku sugan oo dhahaaya wax iga cadaab adag ma leh. ilaahayow anaa ugu cadaab adaga ii khafiifiy. ilaahayow ii raxmo oo ii naxariiso. xaaladiisaa sidaa ah laakiin wax laga yeelaayaa ma jiro. jahannama dadkeeda waxaa kaloo ka mid ah sida ilaah yidhi inna jahannama kaana mirsaada liltaaqiina maaba. waa taaqiin inuu qofku ka mid noqdo dadka xadgudba ee xuduudda alla ka tallaabsada. ilaahay wuxuu u diray qofkii diidaa loola jeedaa. jahannama mirsaad ayay u tahay liltaaqiina maaba laabihiina fiihaa axqaaba. way ku nagaanayaan oo meeshay ku jirayaan zamanka iyo weligood iyo abadan. meeshay ku dhex waarayaan ayuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala. meesha ayay ku dhex sugnaanayaan laabihiina fiihaa axqaaba. haddii la gala ka warrama laa yaduuquuna fiihaa bardan walaa sharaaba. malaha wax qabow oo la cabo. malaha wax sharaaba oo la kabado. malaha meel qabow oo neecaw fiican ay kaaga soo gasho. ma dhadhaminayaan fiihaa bardan walaa sharaaba. haddaan bardi iyo sharaab la siinayn maxay cabayaan raggu? maxay cabayaan? waa dad wax u baahan inay wax cabaan. ilaah wuxuu yidhi ilaa xamiiman wagasaaqan. waa biyo kulul iyo dheecaan naareed maahane. waa biyo kulul iyo caranka ahlu naarka ka yimaada maahane. biyo kulul ayuu dhahay ilaahay ilaa xamiiman wagasaaqa. iyo dheecaanka ahlu naarka ka soo qubta kaasaa la siinaya sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala. innaa actadnaa lilظaalimiina naaran axaata bihim suraadiquhaa wain yastagiisuu yugaasuu bimaa'in kalmuhli. haddayna gargaar weydiistaan ayagoo jahannama ku jira. haddayna baryaan ayagoo jahannama ku jira waa loo gargaarayaa. laakiin yugaasuu bimaa'in kalmuhli biyo ayaa loogu gargaarayaa gufar iyo naxaas la dhalaaliyey oo kale ah. sidaa ayuu ilaah tilmaama subxaana wa tacaala. biyaha ayaa loogu gargaarayaa yashwil wujuuh. marka koobka lagu soo qaado oo ay rabaan inay cabaan afka intay u sii wadaan wejigooda qubka ka soo qubanaya ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. kaas waaye waxana loo diyaariyey waxa aan ku socona haddaa jooji weyna maanta. waa waxa noo diyaarka ah haddaan isbedeli weyno oo aan kitaabka rabbi qabsan weyno oo walaalo muslimiina oo dhaba aan noqon weyno oo dad khayrka iyo wanaagga isugu kaalmeeya aan noqon weyno. bimaa'in balmuhli buu dhahay ilaahay oo yashwil wujuuh. biyahaas wejigooda fiiqaaya oo diiraaya. bi'sa sharaab. sharaab asagaa u xun oo u baas leh. meel laysku soo dhoweeyo oo laysku martiqaado jahannama ayaa u xun.
haddaba jahannamada waa meeshaa dhibaatada iyo rafaadka badan. rasuulka sala allahu calayhi wasalam jannada ayaan taalacday ayuu yidhi, waxaan ku arkay fuqarada muslimiinta aad bay ugu badnaayeen. ilaahay ayaa ku maamusay oo ku sharifoo cadaabkii jahannama dhankeeda ayaa la ii waday, waa lay furay. ma arkin maalin iiga darnayd. war hooyaay meel ka mugdi badnayd oo ka dhib badnayd ma jiro. waxaan ku arkay ehelka u badnaa inay dumarku ahaayeen sala allahu calayhi wasalam. in badan ayuu wacdiyey, uu waaniyey, uu khayrka u sheegay. wax badan ayuu xijaabka kala dardaarmay. wax badan ayuu kala dardaarmay inay lacanada afkooda ka soo baxaysa ay ilaaliyaan. wax badan ayuu kula dardaarmay inay noqdaan dad xishoodka iyo wanaagga ku dadaala. wax badan ayuu kula dardaarmay inay noqdaan dad raggooda ixtiraama. wax badan ayuu kala dardaarmay inay noqdaan dad axsaanka loo sameeya aysan qarinin. wallaahi meeshaa ayagaa u badnaa oo ku gubmaayey ayuu yidhi. war dumarow ilaahay ka cabsada, war khayrka iyo wanaagga ku dadaala. sariigta maanta la waayey gadaal u soo celiya. jalbaabka maanta la waayey gadaal u soo celiya. wax allaala wixii rabbi idiin diray sameeya. dumarkii maalintaa nebiga aad ayuu u wacdiyey. waxay la baxeen farihii wixii ku jiray, waxay la baxeen dhagaha waxay ku qurxinayeen, waxay la baxeen jamjimahay waxyaabihii ay wateen, ayagoo dhahaya cadaabkaa nooga dhib badan ee ilaahayow cadaabka naga ilaali, ilaahayow cadaabka xanuunka badan naga kori ayay dhahaayeen. maca daalika ayay in badan arkeen haddii uu jiro camal fiican oo jannada iyo khayrka iyo wanaagga lagu gaaro inay iibsan lahaayeen. bilaal maradiisa ayay ku daadiyeen. xadadgaa aad iyo aad ayuu rasuulku maalintaa dumarka ula hadlay jaanib walba oo jawaanibta khayrka ka mid ah. waad u jeedaa macaasida badatay maanta. waan arkaynaa dumarka heerka ay ka gaarsiisan yihiin xishoodka. waan u jeednaa heerka iyo waxyaabaha maanta la maraayo. qofkii diin u sheegay u arkaan cadowgooda kan u xun. qofkii taageera ee macaasida iyo xumaanta ku taageera ayay u arkaan ninka ugu horeeya oo gacalkooda ah. war gacalkaaga waa midka diinka iyo wanaagga kuu horseeda. gabar ama wiil ayaa qof la saaxiibaya sida adduunka marka la joogo, sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala. laakiin nasiib wanaag saaxiibkaa xun ayuu ka badbaadayaa. jannada ayuu gelayaa gabadhii fiicnayd ama wiilkii fiicnaa. ilaahay ayaa yidhi qaala qaa'ilun minhum innii kaana lii qariin. ayadoo jannada lagu jiraa mid dhahaaya anigu saaxiib ayaan lahaa. qariin ayaa ii sugnaa yaquulu a innaka la mina almusaddiqiin. wuxuu idhihi jiray kuwa rumaysan maad ka mid tahay. war doqon yahow ma haddaad masaajidka u socotaa maad raaxaysatid. war doqon yahay hadda maad jalbaab iyo hagow qaadanaysaa dhigsi ay raggu kuu arkaan. war goormee lagu guursanaa yaquulu a innaka la mina almusaddiqiin. a idaa mitnaa wa kunnaa turaaban. haddaan dhimano cara iyo lafa baaba'ay aan noqono a innaa lamadiinuun. gadaal maana loo soo celinaa. saasuu idhihi jiray, saasuu idhahaayay markaan adduunka joogay. qaala hal antum muttalacuun. wuxuu leeyahay walaalayaalow, waxaan rabaa kii maanta naar jannada waa ka waayey inaan naarta ka soo fiiriye ma iraacaysaan? wax iraacaya ma jira. wuu baxayaa. faطalaca fara'aahu fii sawaa'i aljaxiim. wuxuu ku arkayaa jaxiima salkeeda asagoo jooga. cadaabka meesha ugu xun asagoo ku jira oo qaylinaya. cadaabka meesha ugu dulliga badan asagoo ku jira ayuu ku arkaa. muxuu dhahayaa tallaahi in kidta la turdiin. ilaahay ayaan ku dhaartee waxaad isigtay inaad i halaagto. ilaahay ayaan ku dhaartee waxaan ku sigtay haddaan ku raaci lahaa. hadalkaaga aan yeeli lahaa. caariyaad aan kula noqon lahaa. salaada markaad ii diidi jirtay aan ku sii raaci lahaa. xilliga dadka ay dukanayaan aan banooniga kula fadhiisan lahaa. ilaaladaa hadday samayn lahaa maanta meesha ayaa lay keeni lahaa.
tallaahi in kidta laturdin walowlaa nicmatu rabbi lakuntu min almuxdariin. nimco allah i waafaqday, ilaahay nimcadiisaa iga soo gaartay maahe maanta meeshaan ku jiri lahaa. waa isaga soo tegayaa wahum yastarikhuuna fiiha, ayaguna waa ku dhex qaylinaayaan. qaylo weyn ayaa ka dhex jeedaysa naarta jahannama gudaheeda. wahum yastarikuuna fiiha, waxay dhahayaan rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan, ilaahayow naga bixi, camal fiicanaa hadda soo qabanaynaa, haddaan ilaahayow soo wanaagsanaanaynaa, haddaan khayr iyo wanaag soo samaynaynaa oo kii hore aan soo samaynay aan ahayn. sidaa ayay ku hadlayaan. jahannama dhib badnaa. war jahannama ninkii maanta iska ilaaliyaa caaqil ah. war jahannama maanta ninkii ka orday ayaa caqli u sugnaaday. war jahannama maanta qof allaala qofkii ku fikiray oo habeenkii ku seexday oo maalintii ku soo kacaa badbaaday. war aamin ha ka noqonina cadaabka. war mar walbaa cadaabka aad iyo aad isaga ilaaliya. waxaa looga badbaadi karaa in aayadaha ilaah la dhaqangeliyo subxaanahu wa tacaala. waxaa looga badbaadi karaa in ilaahay la aamino. waxaa looga badbaadi karaa in wax allaala wixii khayr ah ee nebiga uu jeexay ama dadka uu amray ay dadku markaa u degdegaan. waad u jeeddaa saaxiibka xunna waxa uu ka mid yahay dadka ahlu naarka dadka ugu horseeda haddii nimcada alla ay ku waafaqdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo gaaro maahane. haddaba wax badan ha lagu dadaalo sidii cadaabkaa laysaga ilaalin lahaa, sidii jahannama looga fakan lahaa, sidii jahannama dhibkeeda iyo rafaadkeeda laysaga ilaalin lahaa. rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, jahannamadu bacdamay sidaa tahay meeshaa markii la keeno oo meesha lasoo dhiga dhimbila iyo dhuxula inay ka soo daadanayaan. madax inuu ka soo baxayo ayuu rasuulku sheegay. dadka uu ka dhex raadinaayo wuxuu ku raadinayaa dadka magacyaalkooda. waa u wacanayaa qof allaala qofka khayrka iyo wanaagga diiday. kallaa innahaa ladaa nazaacatan lishawaa tadcuu man adbara watawallaa wajamaca fa awcaa. sidaa ayuu ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala. naarta laba la yidhaahda ee kuleelka badan ee dadka gubta ee dadka cusaadaa loogu talagalay. innahaa ladaa maxay samaynaysaa nazaacatan lishawaa, waa mid siibasho badan oo waxay fiiqaysaa maqaarka. qofka bini aadamka maqaarkiisay cuntaa, lafahay u gudubtaa, hilibkay baabi'isaa, waxba kama reebta. laa tubqii walaa tadar, lawaaxatun lilbashar calayhaa 19 19 malag oo aan laga fakan karin, aan layska laaluushi karin, aan qabiil iyo qabiyaalad aqoonin, aan reer hebel aqoon ayaa kor taagan. calayhaa 19 waa 19 malaa'ig ah oo loogu talagalay inay dadka xoog u halaagaan, inay cadaabka ku celceliyaan. guruumaha ay wataan hadday damcaan inay ka soo baxaan in lagu celiyo. waa dad noocaasa sida ilaah tilmaamay subxaanahu wa tacaala. haddaba waxay siibanaysaa maqaarka. tadcuu man adbara, waxay u wacanaysaa qofkii dibjeediya, reerkii ka jeesta, iimaanka ka jeesta, wuxuu rabbi amray ka jeesta oo haddana xoolihiisii kulmiyey sida ilaah tilmaamay, haddana weel ku xiray oo aan khayr iyo wanaag iyo taaca alla u adeegsanin. haddaba jahannamadaa sidaa ah waa meel dhibaatada iyo rafaadkaa leh. waa meel ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu maalinta shaqinimo ugu daray ama meeshaa lagala mid dhigay uu yahay qof naxariis oo dhan iyo wanaag oo dhanba markaa ka quustay. ida ilaah tilmaamay subxaanahu wa tacaala, khaalidiina fiiha, way ku dhex waarayaan, wayna ku dhex quusanayaan. haddaba ahlu naara, naartaa sidaa loogu cadaabaa. naarta ayay sidaa ugu jiraan ee jahannama ah. ee dadku waa inay aad uga feejignaadaan, waa inay mar walba iska ilaaliyaan camalka iyo waxyaabaha gaarsiinaya cadaabkaana inay markaa ka durqaan. ilaahay wuxuu yidhi asagoo noo tilmaamaya cadaabka,
iyo dhibka iyo rafaadka iyo mashaakilka uu leeyahay waa cadaab aad iyo aad u adag. talfaxu wujuuhahum annaaru wahum fiihaa kaalixun, wejiyaalkooda naartaa feenanaysa meeshay ku dandaran yihiin. waxay dhahay meeshay ku dandaran yihiin ayuu yidhi ilaah, wahum fiihaa kaalixun. waxaa loo dhahayaa alam taku aayaatii tutlaa calaykum fakuntum bihaa tukadibuun, aayaadkaygii ma laydinku kor akhrinin miyaa, idinku sowma beeninin. qaaluu rabbanaa galabat calaynaa shiqwatunaa wa kunnaa qawman daalliin, ayay dhahayaan rabbiyow shaqawa iyo madax adeeg iyo kibir ayaa naga qaalib noqday, qoom dhumay ayaa noqonee. rabbanaa akhrijnaa minhaa, ilaahayow maanta naga bixi, rabbiyow maanta leena badbaadi. fa in cudnaa fa innaa daalimuun, mar dambe ma u noqonayno, haddaan u noqono annagaa daalimiin ahe. ilaah muxuu yidhi yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar, waa maalin dadkii cisaada ahaa ee jahannama loogu talagalay wejigooda naarta lagu gedgedinaayo. qofka hilibka dubaaya sida uu marna dhinacaan ugu rogo dadka, marna dhinacaan oo kalaa la yeelaa. yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar yaquuluuna yaa laytanaa atacna allaha wa atacna arasuula, waxay dhahayaan halaageeniyow maxaan ilaah u ateeci weynay, maxaa rasuulka u ateeci weynay. wejigooda marna saasaa loo gedinaa, marna dhanka kale ayaa loo rogaa, waa wejigoodaa la gedgedinaa, naarta dhexdeedaa lagu gedgedinaa. waa gubmaayaan oo way dubmaayaan, rafaad iyo dhib iyo mashaakil ayaa ka muuqda. maca daalika waxay dhahayaan halaageeniyow atacna allaha wa atacna arasuula, ilaahay ateecnee rasuulka ateecnee. waqaaluu rabbanaa innaa atacnaa saadatanaa wa kubaraa'anaa faadalluuna asabiila, rabbiyow madaxweyntii ayaan ateecnay, dadkii khayr ka darnaa ayaan ateecnay, dadkii noo waaweynaa oo aan caleema saaranaan ateecnay. salaada markaan ka tagna nama ganaaxi jirin, qaaraanka haddaan diidna wayna ganaaxi jireen, haddaan safka hore ku dukun weyno nama canaanan jirin, haddaan qayilaadii waxyaabaha ay u baahan yihiin aan u diidna wayna tacsiiri jireen. innaa atacnaa saadatanaa wa kubaraa'anaa fa adalluuna asabiila, jidkii fiicnaa ayay naga dhumiyeen, jidkii wanaagsanaa way naga leexiyeen. ilaahayow fa adalluuna asabiila, rabbanaa ayay leeyihiin ilaahayow, ilaahayow waa kuwaan ee kuwaan maanta cadaab oo cadaabka u laalaab, ilaahayow cadaab adag ku cadaab. saasay markaa leeyihiin, hadalna anfacaaya ma aha walaalayaal. haddii la cadaabo iyo haddaan la cadaabin dhammaanteen waan ku wada jirnaa. wa inna liltaagiina la shara ma'aab, jahannama yaslawnahaa fa bi'sa almihaad, jahannama ayay gelayaan, gogolna ayadaa u baas leh ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. ilaahay sidaa ayuu yidhi subxaana wa tacaala, jahannama ayay gelayaan, jahannama yaslawnahaa fa bi'sa almihaad, ayadaa u baas leh oo u dhib badan oo gogol la fidiya meeshaa markaa ugu xun. cadaabyo fara badan oo shakli iyo anwaac iyo kala noocnooca ayuu ilaah ugu talagalay subxaana wa tacaala. mar allaala markii ay galaan oo jameecadaa lagu tuuro, waxay leeyihiin ilaahayow kuwaan waayo kuwii cadaabka noo soo horseede, fasidhum cadaaban dicfa, ilaahayow cadaab laalaaba u laalaab, ilaahayow cadaabka u laalaab. sidaa ayay leeyihiin, ayagaa islacanadaaya, ayagaa iscaynaaya, kii ku sheertada u sameeyey kii ku raaca, kii filinka u sameeyey kii ku raacay, kii xumaanta ugu wacay iyo kii ku raacay way islacanadayaan. mar walba oo jameeca lagu rido lacanad ukhtahaa, walaasheed ayay lacanadaysaa buu dhahay ilaahay. nacaladaha kugu dhacdee maxaasaa noo yeeshay, war dad saalixiina ayaa jiroo na wacdin jiray, adaa naga soo leexiyoo na soo waday. lacanad ukhtahaa, ilaa meesha ay isugu yimaadaan oo cadaabka ay ku wada sugnaadaan, oo meesha ilaahay uu ugu talagalay inay markaa ku wada cadaabmaan.
haddaba dhibaatada qof walbow iska ilaali waa meel aad u adag oo u dhib badan oo mashaakilkeeda leh ee ka faka oo ka orod war qof allaala qofkii cabsanayaa waa degdega qofkii degdega makaanka uu ku nabadgelaayo ayuu dhaqso tagaa silcada ilaahay waa jannada silcada ilaahay waa qaali qof walbow camal fiican oo wanaagsan oo cadaabka jahannamana kaa ilaaliya jannadana kuugu horseeda samayso war adduunkan waa masracii iyo abuurkii aakhiro meesha aan maanta joogno waxbaa lagu tabcadaa qofna wuxuu tabcadaa mirihii uu jahannama ku cuni lahaa qofna wuxuu tabcadaa mirihii jannada uu goosan lahaa dad badan ayaa shar abuurtay shar ha abuuranina dad badan ayaa khayr beertee dadka khayr beerta noqda ilaahay ayaa wanaag iyo khayr fara badan idin siinaaya war meeshaan maalmo gaabanaa la joogaa waa laga rawaxaa oo safaraa loo socdaa labadii guri ee aan tilmaannay ayuu rabbi dadka ku abaalmarinaa marka laydin dhahayo ilaahay ayaa dad cadaabaya cadaabkeennana daara ku dhisan maayo waxna u anfici maayaan laakiin annakaana laka rabaa inaan ka orodno maa yafcalu allaahu bicadaabikum ilaahay cadaabkiina muxuu ku fala ilaahay cadaabkiina muxuu u siyaadinayaa in shakartum wa aamantum wa kaana allaahu shaakiran caliima ilaah haddaad rumaysaan haddaad noqotaan dad khayr iyo wanaag ku dadaala ilaahayna shaakir uu yahay caliim uu yahay mid cilmi badan subxaana wa tacaala haddaba waa laydin cadaabaya macnaheeda dulmi ilaahay ma aha laakiin qofka asagaa naftiisa maanta dulmiya qofka maanta asagaa naftiisa xumaan iyo waxyaaba ugu horseeda idan waxaa loo baahan yahay oo la rabaa oo qofka muslimkaa laga rajeeyaa waxa ay tahay inuu jasadkiisa cadaabka ka ilaaliyo rasuulku waa kula dadaali jiray saxaabadiisa iyo dadweynaha oo dhan si casaskooda cadaabka uusan u arkin wiil yahuudi ah oo nebiga u khidmayn jiray ayaa xanuunsaday booqasho ayuu nebigu ugu yimid wuxuu yidhi war ilaahay rumeey war laa ilaaha ila allah beh aabbihiisaa meesha fadhiyay canuga intuu odayga sidaa u fiiriyey ayuu aabbihii yidhi ateec abalqaasim ateec canugii waa rumeeyey rasuulka bannaankuu u soo baxay asagoo dhahaaya alxamdu lilaahi aladii ilaahii ayaa mahad iskale naarta ka koriyey cadaabka ka ilaali waa ku faraxsan yahay sala allahu calayhi wasalam waad buu ugu farxayaa sababtu waxay tahay jasadkiisa ayaa cadaabka alla uu ka ilaaliyey subxaana wa tacaala war wax walba ha nagu kalifo dhib walba aan u marno jid kasta oo jannadana gaarsiinaya aan u degdegno war dhib kasta ha nagu ahaatee aan ka leexana waddo walba oo cadaabka jahannama nagu aroori lahayd cadaabka jahannamana gaarsiin lahayd dadkii jahannama in la soo wada aruuriyo dhammaan cadaabka jahannama jiirkiisii afkiisa laysugu keenaa waa loo bandhigayaa naartii oo la leeyahay ma ujeedaa naaray ma rabtaan kuwaan maxaad kala baxaysaa walow taraa id wuqifuu cala annaar wakhtiga naarta korkeeda la soo istaajinaayo oo la leeyahay inta loo soo bandhiga ayagu ay dhahayaan halaageeniyaw nuraddu walaa nukadibu biaayaati rabbina gadaadna loo celiyey oo aanan dib damba u soo beeninin aayaadka ilaahay oo mu'miniinta aan ka mid noqono waxaa u muuqday wixii ka qarsoonaa waxay arkeen wixii ka daboolnaa war jahannama waa qayb weligeen ma arkin waana loo sheegoo qur'aankaana loogugu tilmaamee aan rumayno sidaa ayaana loogugu talagalay ilaahayna abaalgud noo siina subxaana wa tacaala taasuu ilaa khayr iyo wanaag nagu siina qiyaamaha marka la gaara ilaah muxuu yidhi yucrafu almujrimuuna bisiimaahum calaamadaha ay leeyihiin ayaa lagu aqoonsanayaa fayu'khadu biannawaasi waalaqdaam markaasaa foodaha iyo gomdaha laysku qabtaa mufasiriinta gobol ayaa yidhi gadaal inta loo soo jebiyo fooda in laga soo qabtaa cirbaha looga xiraa markaasaa cadaabka lagu tuuraa muxuu dhahaa ilaahay haadihi jahannamu allatii tani waa jahannamadii aad beenin jirteen waa jahannamadii aad inkirayseen yatuufuuna baynahaa wa bayna xamiimin aan waxay ku dhex meeraystaan jahanname iyo biyo kulul inta u dhaxaysa
weliba waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa jahannamay ku jiraan meesha ay biyaha ka cabayaan waa biyaha kulule waa isla jahannamo laakiin meeshay ku jiraan ma aha horay u sii socdaan oo naartay ku sii dhex jiraan meeshay biyaha ka cabayeen waa biyo kulul yatuufuuna baynahaa wa bayna xamiimin aan jahanname iyo biyo kulul inta u dhaxaysay ku dhex tawaafayaan meeshaasay ku dhex wareegayaan meeshaasay ku dhex tawaafayaan oo ay ku dhex meeraystaan haddaba qof walbow adiga ha noqonin qof walbow owlaadaadayay noqonin ninkow xaaskaagayay noqonin dadka saa loo geli doono see looga badbaadaa marka waxaa looga badbaadaa in camal fiican la sameeyo in qoysku uu qoys wanaagsan noqdo guryuhu inay noqdaan guryo diinta alla looga dhaqmo guryo diinta alla lagu oogo hooyadu inay musalliyad noqoto inay gabar xijaabkeeda fiican yahay noqoto inay noqoto midaan deriska dhibin inay noqoto mid owlaadeeda qur'aanka ku tarbiyaysa qur'aanka u meerisa habeenkii dhaqso seexisa subaxii wakhti wanaagsan kicisa ninkeeda khayrka iyo wanaagga u dardaaranta salaada subxeed kicisa hadduu diido jahanname ay ku cabsi gelido waa arrinta ugu fiican ee ugu wanaagsan aabbuhuna saasoo kalaa loogu talagalay inuu xaasku si fiican u dhaqo daacad iyo si wanaagsan inuu ula dhaqmo inuu wanaag iyo khayr u qabto inuu khayrka iyo waxyaabaha rabbi amray u dardaarmo inuu owlaadda saasoo kale ku koontaroolo diinta maaha inuu wax caloosha ugu shubo dhar uu u labiso asaga goobaha qayilaadaa fadhiisto ayadoo ay tv-ga ag fadhiso ilmuhu meelaha qaadka iyo meelaha siga jahannama